صحيح مسلم وحق الصغن من حديث أبي هريرة نبي صلوات ربي والسلام عليه إنه يريه ما نقصت صدقة من مال صدقة مال منس قامصة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا إلهنا سبحانه وتعالى أمزي هذه الدون عفسك ودتك عفينايو إلا عزا الشرف موياني عزي وما تواضع أحد لله إلا رفعه قفنا وما تواضع الله سبحانه وتعالى أولك سمرقه إلهي درتي إلا رفعه الله سبحانه وتعالى قفك ورفعه أو قرب أقاضى موياني حديث كان هو حديث aad u wanaagsan oo wuxuuna barayaa xadiisku badana sidaan waxyaabaha qaar u haysano ma aha oo qaabka ay wax u muuqdaan ama dhaqankeena u muuqdo ma aha sida saxda ah oo qofku wuxuu u maleeyaa sadaqadu markuu bixinayo ama xoolaha haduu aad u bixiyo inuu xoolo beelayo waa sida maskaxda ku soo degdegayso haddaan xoolahan bixiyo oo haddana aan bixiyo waan xoolo beelayaa ilaahay wuxuu leeyahay yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ribadu alle subxaanahu wa tacaala waa tirtiraa sadaqaadkuna alle subxaanahu wa tacaala kor buu u qaadaa sadaqada aad bixinaysid ilaahay in ka badan buu ku siin niyada wanaaji cafiska qofka hadduu wax cafiyo dadku badanaa waxay u haystaan hebel waa qof iska maskiin ah waa qof lagu dul socon karo waa qof noocaas oo kale qof shakhsiyad awood leh ama xoog leh ma aha qofkii wax ku sameeya ama xanta ama xumaan u sameeya wuu iska cafiyaa cafisku waa sharaf cafisku waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walyacfuu walyasfaxuu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عافية ددك ها عفيانو أو ددك ها سامحان ما هو جعلان إنه الله سبحانه وتعالى أدم بدافه هو عافية يقولنا ما دام أنو جعلنا إنه ألنا عافية أنا قلنا ددك أنو عافينا إلهنا غفور رحيم ددك هداد عفيسه وعفسكاada u bato sharaf iyo cizi ayaad helaysaa ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam calayhi mid saddexaad waa tawaaduca isuu dhiga qofku inuu dhulka isdhigo dadkiisa uu ka mid noqdo oo laga aqoonin oo uu noqdo qof jacayl dadkiisa inuu ku dhex jiro waa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam calayhi uu ahaan jiray tawaaduca qofka dhulka isuma dhigo ilaahay dartii إلا الله سبحانه وتعالى وحقوق بدلا إنه كر قاضي تواضع ودتك كلا إن هذا حقيرين ذنبي وحقوق فلان إن دتك كلا حقرته أترى هبل واللانجا أني قال لانديرا أترى هبل وان كعب بدنا أترى هبل وسيدا وحيابها صوبا إلهي سبحانه وتعالى وحقوق كرام بدن قفك كعب سدا kaas ugu karaamo badan oo taqwada qofka ku dadaalo ayaa ugu karaamo badan walaalayaal saddexda shay aan ku dadaalno wada inta ku dadaalno nolol wanaagsan baan ku noolaanaynaa mid labaad waxaanu helaynaa wanaag iyo khayr fara badan adduunka dhexdiisa shacab is haysto walaalo ah oo nolol wanaagsan ku nool ayaan noqonaynaa dawladnimona waa helaynaa qaranna waan helaynaa haddaanu iscafino ama sidoo kale tawaaduc aanu sameyno dhulka soo dhigno intayna dhibaataysanna aanu caawino aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh